maayirka degmada Boorama iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadani Boorama ayaa waxay maanta dayactir ballaaran ku sameeyeen wadada halbowlaha ee isku xidha xaafadaha Fardaha iyo Axmed Salaan taasi oo muhiim u ah isku socodka labadaasi xaafadood oo waxyeello daran u geysteen roobabkii dhawaan ka da'ay gudaha magaalada Boorama qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen halkan annagoo ah golaha deegaanka degmada Boorama dhammaan waxaan u joognaa in la dayactiro wadada Galda Road oo mar hore aan sameynay foodiinkii la sameeyay oo dayactir lagu sameynayo oo daadku gooyay daadkii waa gooyay waxa weeye imika waxa qaaday daadkii biriishkii waxa gooyay daadkii marka waxaan ku sameynaa dayactir iyo dib habayn waxaan xiraynaa gaabiyan iyo sabad ayaan ku xirnaa haddii taasina waa dadaalkii golaha deegaanka haddii waxaan idinku boorreynaa shacabku inay ilaashadaan dariiqada iyo wadooyinka dhamaantoodba waxaan joognaa waa wadadii Galda Road laagtii isku xidhaysay xaafadda Sheekh Cali Jawhar iyo xaafadda Axmed Salaan oo runtii uu daadkii roobkii waayadan da'ayay oo aad u gooyay runtii wad arkaysaan shaqada ka socota waa wadada isku xidhan labada xaafadood waa meel lagama maarmaana oo loo baahan yahay waxaan dadka ku goobinaynaa ama aan leenahay waa inaad iska bixisaan cashuurta waana si wax loogu qabto waxa weeyaan dadweynaha waxaan u sheegnaa daba 5 cishan kaga soo jawaabnay baahida ayna soo gaarsiiyeen maalintii muddo 5 cisho gudaheega wanaa kaga soo jawaabnay waxa leenahay daba dadweynaha cashuurta hal la bixiyaan leenahay qof walba cashuurta wixii lagu leeyahay iska bixi gaar ahaan waliba dhulka banaan ee cashuurta ay ku baaqatay ha iska bixiyaan cashuurta dhanka kale qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka ee maro wadadaasi ayaa soo dhaweeyay dhismaha iyo dayactirkan ballaaran ee lagu sameeyo wadadaasi iyagoona u mahad celiyay maayirka iyo xildhibaanadiisa waxa weeyaan wadadan waa naga go'day waxa isku xidhaa xaafadaha Fardaha iyo xaafadda Kuwait bay isku xidhaa waxa weeyaan marka maayirku aad buu shaqaynayaa aad iyo aad maayirku mahadsan yahay golaha deegaanka waan ku amaanaynaa ma garanaysaa kaabadaha go'a markay la sameeyaan wax yar ka go'ay ay ka qabtaan waxaan mahad gaar u celinayaa maayirka degmada gobolka Awdal Masar Meedhane xildhibaanada sharafta leh yaani wax qabadka ballaaran ee meeshan ka wadan wada aragtaan saarida dartan waan uga mahad celinaynaa maayirka degmada Masar Meedhane iyo xildhibaanada sharafta leh ee yimiday isla markaana ay doonayaan inay dayactiraan waxaan leenahay maayir adiga iyo cidda kula shaqeynaysaba hambaliyo waa shaqo wanaagsan ugu dambeynna maayirka degmada Booramo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay iska bixiyaan cashuuraha si wax loogaga qabto bilicda magaalada Boorama runtii halkan imkaan ku sugannahay waa wadadii Galda Road kaabadii ku taalay ee isku xidhaysay xaafadda Fardaha iyo Axmed Salaan oo runtii daadku waxyeelay waxaan imika ka shaqeynaynaa waa hawshii iyo dhaawicii uu geystay daadku waxaan ku shubaynaa gabiina waan gelinaynaa sagbadna waan ku shubaynaa hawsha ballaaran ba ka socota waan wax qabadkii iyo waajibaadkiina saarnaa inaan gudano runtii inaan dadweynaha u shaqeyno diyaar baan u nahay dadweynahana waxaan ka rabnaa in cashuurta soo hooyaan si wax loogu qabto cashuurta la idinka qaado ayaa wax la idinku qabanayaa